kulanti wacan wanaagsan idil ahaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka socdaalka dunida. waxyaabaha ay idin kaga bogan doontaan toddobaadkan waxaa ka mid ah faafitaanka cudurka coronavirus iyo saameynta lixaadka leh ee uu ku sameeyey dalalka caalamka. waxaan ku eegi doonaa khasaaraha dhimashada, kiisaska hor leh ee ku soo kordhaya wadamada qaaradda Afrika aynu ku noolnahay, Aasiya iyo Yurub, inagoo si gaar ah ku eegi doono halka cudurka uu ka yimid iyo eedeyn hor leh oo loo jeedinayo shaybaar ku yaala dalkaasi Shiinaha, gaar ahaan halkii uu asal ahaan cudurka uu ka yimid ee magaalada Wuhan, oo lagu eedeynayo inay suurtagal tahay in uu si kama ah kaga fakaday saynisyahanada magaaladaasi. arrintaasi oo Shiinuhuna uu jawaab ka bixiyay. barnaamijka socdaalka ee toddobaadkan waxaan kaloo aan idinkugu soo gudbin doonaa dalka ugu dadka badan ee dalka Nigeria, oo ah dalka ugu dadka badan oo uu cudurkaasi uu halis weyn uu ku yahay, isla markaana dadka dalkaasi ay u nugul yihiin kadib markii uu u geeriyooday nin si weyn ay isugu dhow yihiin, isla markaana ahaa albaabka hore ee laga galo xafiiska madaxweynaha, oo la sheegay inuu cudurka u geeriyooday. barnaamijka waxa kaloo aan idinkugu soo gudbin doonaa maxkamad ku taala dalka Malawi oo iyadu diiday in gabi ahaanba xayiraada lagu soo rogay dalkaasi ee ka badan muddada 20 cisho ah ay dhaqan gasho. arrintaasi oo ay tilmaamtay in ay tahay dadka masaakiinta ah ama saboolka ahi oo ay mar kale dowladdu ay cadaadinayso. barnaamijka socdaalka adduunka waxyaabaha aan idinkugu soo gudbin doono waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriin tiro badan oo laga soo celiyey dalka Mareykanka, isla markaana dalkii ay doonayeen in dib loogu celiyo ee Guatemala oo la diiday. sababtu maxay tahay? la taliyaha ahna madaxa shaqaalaha ee madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari ayaa u geeriyooday xanuunka coronavirus, sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska madaxtooyada dalka Nigeria. xafiiska Buhari ayaa soo saaray bayaan uu ku sheegay in ninkan oo lagu magacaabo Abba Kyari uu ahaa iridda laga galo xafiiska madaxweynaha, isla markaana uu ahaa khabiir sare, taa oo u muuqata in ay naxdin weyn ay ku tahay xafiiska madaxweynaha dalka Nigeria. dalkaasi Nigeria oo ah dalka ugu dadka badan qaaradda Afrika. marxuumka ayaa laga helay xanuunka coronavirus, waxaana uu qaadanayay daawooyinka la xiriira cudurkan, isagoo u geeriyooday 17 bishan Abriil ee sanadkan 2020. ilaaha u naxariisto. Kyari ayaa ku jiray da'da 70 sano jirka, wuxuuna ahaa qofkii ugu sareeyay oo u dhintay xanuunka coronavirus. Kyari ayaa waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay oo xil darajo intaa la eg ka haya gudaha dalka Nigeria oo xanuunkan uu dilo. kiisaska dalka Nigeria ayaa maraya 493 inta la xaqiijiyay, halka 17 qof ay u dhinteen cudurka coronavirus, sida ay sheegtay xarunta xakameynta iyo ka hortagga cudurka ee Nigeria. Kyari ayaa ka cabanayay xaaladda dhinaca caafimaadka ah ee COVID-19, waxaana uu ka mid ahaa shakhsiyaadka la taliyayaasha ugu wanaagsan ee dhinaca madaxweyne Buhari, isagoo ahaa qofkii loo mari jiray madaxweynaha dalka Nigeria ayaa haatan da'diisu waxa ay tahay 77 sano jir, waxaana uu marayaa xilligii labaad ee xafiiska dalka Nigeria, iyadoo si dimuqraadi ah loo soo doortay mar labaad gudaha xafiiska talada ee dalkaasi. Abba Kyari oo ah marxuumka geeriyooday ayaa ahaa shakhsi aad ay isugu dhawaayeen madaxweynaha, waxaana uu xanuunkan u haleelay dabayaaqadkii bishii March ee sanadkan 2020.
kadib markii uu dib ugu soo laabtay dalka isagoo ka yimid dhinaca dalka Jarmalka, iyadoo saraakiil badan oo ay arrintan ku qasabtay in tuhun weyn laga qaado, waxaana ay dhalisay in karantiin lagu soo rogo kadib markii qaar ka mid ah kuwii isaga xiriirka la lahaa laga shakiyay in xanuunkan ay qabaan. bayaan soo baxay 29kii bisha March, Kayari waxa uu ku sheegay in loo gudbinayo dhinaca magaalada Lagos oo ah xarunta lagu daaweyn doono, isla markaana uu sida ugu dhaqsiyaha badan dib ugu soo laaban doono xafiiskiisa. madaxweyne Buhari ayaanan si rasmi ah loo xaqiijin in uu qabo xanuunka coronavirus, iyadoo hadallo uu u jeediyo uu ugu baaqayo shacabka dalkaasi inay guryahooda joogaan si loola tacaalo cudurka inaanu fidin. dowladda Nigeria ayaa ku soo rogtay bandow iyo xayiraad magaalada ganacsiga ah ee Lagos iyo caasimadda Abuja. madaxda maamul goboleedyada dalkaasi ayaa iyaguna soo rogay tallaabooyin lagula tacaalayo fidista xanuunka coronavirus. khubaro u dhashay dalka Nigeria ayaa sheegay in 200 oo milyan ay u nugul yihiin in uu cudurkan ku fido, iyadoo aysan jirin agabyo aad u firfircoon oo tabartoodu ay ka bixi karto in dadka lagula tacaalo xanuunkan. bulshada dalkaasi oo ah kuwa si teel ah u degan deegaanada dalkaasi. xarunta ilaalinta iyo xakameynta ka hortagga cudurka ee coronavirus ee dalka Nigeria ayaa sheegtay in 1,000 qof ay ku dhinteen gudaha dalkaasi markii uu ku dhacay cudurka koronaha. guud ahaan 52 ka mid ah 54 wadan ee qaaradda Afrika ayaa laga soo wariyay in cudurkan uu ka jiro, iyadoo ay xaaladaha guud ahaan ay gaarayaan in ka badan 19,800 oo qof. hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in 50% uu kordhayo kiisaska ka jira gudaha dalalka qaaradweynta Afrika, iyadoo 60% ay kor u kacday tirada dhimashada toddobaadkii la soo dhaafay. balse madaxa hay-adda WHO ayaa ka digay gaabiska baaritaanka dadka lagu sameeyo ee qaaradda Afrika, taa oo ay dhici karto in tirada ay aad u sii kororto ama ay ka sareyso sida la soo wariyay. xarunta ilaalinta iyo ka hortagga cudurka ee Afrika ee loo soo gaabiyo CDC ayaa sheegtay in ka badan 1 milyan oo qof laga baaray cudurka, isla markaana uu cudurku ay dhici karto in uu sii socdo. madaxweynaha dalka Guatemala ayaa joojiyay gabi ahaanba duulimaadka dalka Mareykanka ka soo gala, gaar ahaan dadka laga soo masaafuriyo dalkaasi kadib markii diyaarad siday 73 qof oo si ballaaran loo sheegay in uu saameeyay caabuqa COVID-19. Alejandro Giammattei ayaa tallaabadan hakinta ku dhaqaaqay ee dadka laga soo masaafuriyay dalka Mareykanka kadib markii tiro badan oo muhaajiriin ah laga soo celiyay wadanka Mareykanka oo toddobaadkan lagu soo celiyay dalka Guatemala iyagoo laga helay cudurka COVID-19. madaxweyne Alejandro ayaa sheegay in 12 qof oo ka mid ahaa dadkii la soo masaafuriyay dhowaan laga helay cudurka caabuqa fida markii ay baaris ku samaysay hay-adda ka hortagga iyo xakameynta cudurka ee Mareykanka kadib markii ay soo gaareen dalkaasi, iyadoo sidoo kalena ay dad badan oo la socday duulimaadka laga helay xanuunkan. arrintan ayaa timid iyadoo ay taagan tahay weli dalka Guatemala duufaan siyaasadeed tan iyo markii uu wasiirka caafimaadka dalkaasi Hugo Monroy toddobaadkani uu sheegay ilaa iyo 75% rakaabka la socday duulimaadkii la soo masaafuriyay bishii March uu ku dhacay caabuqa viruska. hadalka uu TV-ga ka jeediyay madaxweynaha dalka Guatemala waxa uu ku sheegay in dad badan cudurku uu haleelay. duulimaadka waxaa saarnaa 73 oo u dhashay Guatemala, qaarna ka yimid gobolka Alexandria oo uu ka tirsan yahay gobolka Louisiana, ku sii jeeday caasimadda dalka Guatemala ee Guatemala City. Mareykanka ayaa sheegay in koox soo qiimeysa xaaladda ay u dirtay baaritaan ku sameysa muhaajiriinta oo haatan lagu karantiilay
gudaha cusbitaal ku yaala dalkaasi. madaxweyne Trump iyo maamulkiisa ayaa ku cadaadinaya Guatemala inay iska ilaaliso muhaajiriinta dib ugu soo laabanaya dalkeeda, kuwaasi oo sii murjin kara xaaladda dadka Guatemala ee bartamaha Mareykanka, iyadoo dadka ku soo noqonaya uu la socdo viruska ayna dhici karto inay ku ridaan bulshooyinka ka fogfog ee haatan fayow. wakaaladda AB ayaa sheegtay in 44 ruux oo uu ku dhacay xanuunkan ogaalkaasi oo ku kalifay Guatemala inay hakiso dhammaan duulimaadyada masaafurinta ah ee kaga imaanaya dhinaca dalka Mareykanka. madaxweyne Alejandro ayaa sheegay ilaa heshiis laga gaaro oo labada dal ay ka heshiiyaan dhinaca dadka la soo masaafurinayo, kaas oo u xaqiijinaya in dadka marka hore la siiyo shahaadooyin dhinaca caafimaadka ah oo muujinaya inaanay qabin viruska koronaha. waan joojinay duulimaadka dadka la soo masaafuriyay, ayuu yiri madaxweyne Alejandro, isagoo sheegay in Mareykanku ay ka codsadeen horaanta bishan ee Abriil in duulimaadkii yimid iyo kii bishii Maaj 26keedii inuu Mareykanku u saxiixo borotokool lagu keeni karo muwaadiniinta la soo masaafuriyo iyadoo la xaqiijinayo in aysan lahayn caabuqa coronavirus. maxkamad ku taala dalka Malawi ayaa taageertay codsi ay jeediyeen koox ku bahowday difaaca xuquuqda aadanaha, kuwa oo ku doodayay in dowladda aysan qaadin tallaabooyin ay barkin kaga dhiganayso ama ay ku cadaadinayso dadka saboolka ah xilliga amarka ah ee gurigaaga joog. maxkamadda ayaa dhowaan meel iska dhigtay xayiraadda iyadoo ka jawaabaysa caqabadaha ay sheegeen kooxda ku bahowday ama la magac baxday isbahaysiga difaacayaasha xuquuqda aadanaha ee Malawi ee loo soo gaabiyo HRDC, oo ku doodaysa in loo baahan yahay wadatashi badan si looga hortago in la dhibaateeyo kuwa bulshada ugu saboolsan uguna nugul. ganacsatada yaryar sida qaalibka ah daayarta ayaa dibadbaxyo ka dhigayay 3 magaalo ay ugu waaweyn ee dalkaasi Malawi, iyagoo ka soo horjeeday iridlaabka la qorsheeyay ka oo bilowgii hore lagu waday in uu bilowdo Sabtidii, iyagoo sitay halkudhigyo ay ku qoran yihiin inay wanaagsanaan lahayd inuu ku dhaco viruska halkii ay gaajo ugu dhiman lahaayeen gudaha aqalada ay ku nool yihiin, maxaa yeelay ma awoodaan inay shaqaystaan. kuwa mudaharaadka dhigayay waxa ay ugu baaqayeen dowladda in ay siiso lacag cadaan ah iyo cunno gacanta laga saaro haddii ay xayiraadda ay sii soconayso. Gifty Trapens oo ah gudoomiyaha kooxda xuquuqda aadanaha Malawi ayaa sheegay in maxkamaddu ay siisay qafiifin ku meel gaar ah, iyadoo sheegtay in dib u eegis garsoorka uu ku sameynayo muddo 7 cisho ah, waxaana uu sheegay in taasi macnaheedu yahay in xayiraaddu aysan jirin 7 maalmood ee soo socota. xogayaha madaxtooyada Malawi Mogeme Kalilani ayaa u sheegay wakaaladda Reuters in madaxweyne Peter Mutharika uu og yahay xukunka, isla markaana uu sii wadi doono inuu eego xayiraadda ay ku socoto